ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada xiisaha badan ee aad xilligan daawan doontaana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo shaaciya halkii uu ku socday iyo ujeedka maanta qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo khasaare geystay. xog iyo macluumaad ku saabsan khasaaraha qaraxa ka dhashay iyo sidoo kale war ay ka soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena. qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah taliyaha difaaca ee dowladda Kenya oo si qarsoodi ah ku tagay deegaanada Jubbaland. Ra'iisul Wasaare Khayre iyo beesha caalamka oo arrimo xasaasi ah ka wada hadlay. Jubbaland oo amarkii Al-Shabaab dul saartay amar kale. rag ka tirsan Al-Shabaab oo qaraxyo lagu qabtay. madaxweyne Farmaajo oo kulan xasaasi ah la qaatay Thabo Mbeki iyo macluumaad ku saabsan xildhibaano digniin u diray madaxda Puntland. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon. waa 22 Juulaay iminkana u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax ismiidaamin ahaa oo maanta saacadu markay ahayd abbaare 10:40 daqiiqo ee barqanimo ka dhacay bar kontarool oo ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska kilomitir 4 gaar ahaan wadada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde international ee magaalada Muqdisho. ruuxa waday gaariga qarxay oo la sheegay inuu ahaa Toyota Noha ayaa ciidamada ammaanka ee ku sugnaa barta kontarool waxa uu isku dayay inuu xoog ku dhaafo, balse ciidamada ammaanka ayaa waxa la sheegay inay u diideen, waxaana ay dad goobjoogayaal ay sheegeen in ciidamada ay ka shakiyeen intuu isqarxin ruuxii wada gaarigaasi. qaraxaasi ayaa ka dhashay khasaare naf iyo maalba lahaa, kuwaas oo ku dhawaad 20 ruux ay waxyeello kala duwan ay ka soo gaartay, halka dhaawaca intaasi uu kor ugu dhaafayo. maamulka cisbitaalka Madiina ayaa la sheegay in la gaarsiiyay meydadka 17 ruux iyo dhaawacyo intaasi ka badan. sidoo kalena waxaa jira cisbitaallo kale oo la gaarsiiyey dad waxyeello ay ka soo gaartay qaraxaasi, maadaama dadkii aad ugu badnaayeen goobta. waxaana weli la ogeyn tirada rasmiga ah ee dadka dhimashada iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaasi. dab ka dhashay qaraxaasi ayaa sidoo kale waxa uu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala afaafka hore hotelka Afriga ee magaalada Muqdisho, waxaana u gurmaday gaadiidka dabdamiska, waxaana lagu guuleystay daqiiqado kadib daminta dabkaasi. dadka uu khasaarahaasi soo gaaray qaraxa ee ka agdhawaaday ayaa goobta waxay u badnaayeen dhalinyaro ku xamaalan jiray mootada laba lugaaleeda ee Fekonto loo yaqaano oo dadka ku geyn jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. askartii celisay gaariga ah iyo dad doonaya in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde ayaa la sheegay inay u badnaayeen dad xujaay ah, kuwaas oo la sheegay in ay doonayeen inay soo gutaan acmaasha xajka, kuwaas oo iyagana waxyeello ay soo gaartay. laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya weli wax rasmi ah warka ma aysan soo saarin qaraxaasi ka dhac maanta agagaarka kilomitir 4. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya General Zakiya Hussein oo barta ay ku leedahay baraha bulshada qoraal soo dhigtay waxay ku tiri abbaara 10:40 subaxnimo ayaa ciidamada ammaanka waxay ka hortageen baabuur nuuciisu yahay Toyota Noha oo la doonayay inuu xoog uu ku maro checkpoint yaala kilomitir 4, halkaas oo uu ku qarxay, waxaana qaraxaasi ku dhintay askar iyo dad shacab ah, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Allah u naxariistay intii dhimatay, inta dhaawacantayna caafimaad degdeg insha Allah ayay soo dhigtay barteeda Facebook. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Zakiya Hussein. qaraxan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ammaanka magaalada aad loo adkeeyay. dhinaca kale Al-Shabaab waxay sheegeen bartilmaameedka qaraxa. kooxda Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaada bartilmaameedka qaraxii xooganaa ee maanta ka dhacay agagaarka hotelka Afriga ee ku yaala wadada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde international oo ah agagaarka kilomitir 4. war ay baahiyeen warbaahinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in ujeedka qaraxa uu ahaa bar kontarool laga ilaaliyo gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay maamulaan ciidamada amniga ee dowladda. Al-Shabaab waxay sheegeen in xilliga qaraxa uu dhacay kontaroolka lagu hubinayo gawaari kuwa aan xabada karin ah oo ay wateen mas'uuliyiin iyo saraakiil sarsare, isla markaana waxyeello xoogan ay soo gaartay qaar ka mid ah gawaaridaasi ciidamadii ilaalinayay. mana jirta cid si madax bannaan u xaqiijin karta warka Al-Shabaab. kontaroolka ay la beegsadeen qaraxan ayaa Al-Shabaab ay sheegeen in laga ilaaliyo xarumo hay'adaha shisheeye ay ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. mas-uuliyadda qaraxaas ayaa ay sheegteen Al-Shabaab, waxaana waxyeello kala duwan ay ka soo gaartay dad ku sugnaa goobta. dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixisay qaraxaasi, kaas oo barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. qaraxa waxa uu ahaa mid ka dhashay gaari laga buuxiyo waxyaabaha qarxa, kaas oo ku qarxay afaafka hore ee bar kontarool oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin wadada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde international. dadka goobta ku dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ahaa askar iyo dad rayid ah oo ku sugnaa goobta qarax uu ka dhacay. war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in qarax uu ahaa nuuciisa Toyota Noha,
qoraalka oo ay soo daabacday taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska zakiye xuseen axmed ayaa waxay ku sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid ciidamada ay ka hortageen oo dad rayid ay ku dhinteen. dhanka kale al-shabaab ayaa mas-uuliyaddiisa qaatay qaraxaasi, waxaana ay sheegeen in bartilmaameedka uu ahaa bar kontarool oo ciidamada ay ku sugnaayeen. muddooyinkii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka geysanaya magaalada muqdisho, inkastoo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay wadeen dadaalada ku aadan sidii arrimahaasi looga hortagi lahaa. waxaana socday baaritaano ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya, iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay yaraadeen qaraxyada al-shabaab ay ka geysanayeen magaalada muqdisho. waxyaabaha kasoo kordhana faahfaahinada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah. markana dhuusamareeb. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta kulan xasaasi ah gudaha magaalada dhuusamareeb kula qaatay safiirada dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay, ururka midooda afrika iyo sidoo kale midka urur goboleedka igad. kulanka oo saacado badan qaatay ayaa intiisa badan diiradda waxaa lagu saaray xaalada maamulka galmudug oo dhowaan galaya dib u heshiisiin iyo doorasho. ra-iisul wasaare kheyre ayaa xubnaha beesha caalamka uga warbixiyey heerarka kala duwan ee ay soo mareen dadaalada lagu dhisaya galmudug oo midaysan. sidoo kale kheyre ayaa ka dalbaday safiirada iyo wakiilada in ay kordhiyaan taageeradooda iyo garab istaaga soomaaliya. dhankooda xubnaha ka socda dalalka beesha caalamka ee ka qaybgala shirkaas ayaa bogaadiyey xukuumadda federaalk ee soomaaliya dadaalada dib u dhiska ee ka wado gudaha deegaanadaasi, gaar ahaana magaalada dhuusamareeb. xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid a wasiirada ayaa muddo bil ah waxay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb, halkaas oo ay ka wadaan dhismaha galmudug oo loo dhan yahay. markana jubbaland. sida ay warbaahinta ay ogaatay taliyaha guud ee ciidanka xooga dalkaasi kenya genaraal walter raray ayaa lagu waramayaa in booqasho dhumaaleysi a dhowaan uu ku yimid gudaha dalka soomaaliya. socdaalkan oo horey loo sii shaacin ayaa taliyuhu wuxuu ku tegay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose. sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu booqday xarumo militari oo ciidamada dalkaasi kenya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland. dhinaca kale qoraal ka soo baxay taliska ciidanka difaaca ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in ujeedka safarka taliyaha uu ahaa mid dhiirigelina, islamarkaana waayo aragnimadiisa oo la wadaagaya ciidanka dowladda kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee ka socda gudaha dalka. warkan laguma shaacin goorta uu taliyo walter raray uu yimid gudaha dalka soomaaliya. booqashadan ayaa kusoo aadaysay xilli dhowaan la filaya in doorashada guud ee jubbaland ay ka dhacda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. kenya ayaa xiriir dhow waxay la leedahay maamulka axmed madoobe oo hadda wajahaya culeys uga imaanaya dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya. dhinaca kalena maamulka gobolka gada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa digniin adag u diray ergada soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku sugan gobolkaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada garbahaare aadan siraad maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in amarada al-shabaab ay ka shaqeeyaan degmada iyo guud ahaan gobolkaasi gado. siraad ayaa tilmaamay in ergada ay soo dooratay baarlamaanka ama cid kasta oo fulisa awaamiirta al-shabaab ay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo waafaqsan sharciga. sidoo kale waxauu carabka uu ku dhiftay in al-shabaab uu dagaal uu kala dhexeeyo, islamarkaana iska qaban doonaan qof kasta oo la macaamisho siduu hadalka u dhigay. amarka ka soo baxay jubbaland gaar ahaana maamulka degmada garbahaare ayaa waxa uu walwal kusii ridayaa ergada soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo dhowaan al-shabaab ay u yeereen. odayaasha ayaa waxaa amar cusub duldhigay xarakada al-shabaab oo u qabatay muddo 45 ciso ah inay ku yimaadaan deegaanada ay maamulaan al-shabaab. waxyaabo kale ayaa inoo soo socda, balse markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan gaara xarunta madaxtooyada waxa uu kula qaatay madaxweynihii hore dalka koonfur africa Thabo Mbeki iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada muqdisho, kuwaas oo ka socda ururka midooda afrika. kulanka oo ahaa mid xasaasi ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab, isdhexgalka dalalka afrika iyo guud ahaan amniga gobolka. madaxweyne farmaajo ayaa wafdiga uga warbixiyey miradhalka dadaalada dib u dhiska dalka iyo caqabadaha haysta soomaaliya. dagaalka aan kula jirno argagixisada ma ahan mid ku kooban soomaaliya, waa dagaal u yaala dhammaan dalalka gobolka. wax ka qabashada argagixisadu waxay u baahan tahay jawaab heer gobol iyo aragti midaysan oo aan ka yeelana xaqiijinta amniga ee guud ee gobolka, ayuu yidhi madaxweyne farmaajo. dhanka kale Thabo Mbeki madaxweynihii hore ee dalkaasi koonfur afrika haataana ah madaxa guddiga sare ee la taliyaha midooda afrika ayaa dhankiisa waxuu ka hadlay madasha, waxaana uu ka sheekeeyey maqaamka ay soomaaliya ku lahayd qaaradda afrika iyo caalamkaba. kulankan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar, gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow, gudoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka. markaana
taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in gacanta ay ku dhigaan xubno ka tirsan al-shabaab oo waday qaraxyo iyo miinooyin kadib howlgalle ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Taliyaha qaybta 43 ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in 3 ka tirsan al-shabaab ay ku soo qabteen howlgalladaasi oo laga fuliyay agaarka degmada Jamaame ee gobolkaasi. War ka soo baxay taliskan ayaa lagu sheegay in raggaasi ay la socdeen gaari BL ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah. ma shaacin saraakiishaani magacyada xubnahaasi, balse waxa ay soo bandhigeen sawiradooda iyo waxyaabihii ay sheegeen inay ku qabteen. Howlgalka ayaa lagu soo qabtay raggan waxaana uu qayb ka ahaa dhaqdhaqaaq ka dhana al-shabaab oo ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada Jubbaland. ugu dambeyntiina xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa si kulal maanta waxay uga hadleen xariga ciidamada ammaanka ee Puntland ay u geysteen xubno ka tirsan guddiga dhismaha wadada bartamaha magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in xariga xubnahaasi ay kala hadleen xubno ka tirsan xukuumadda Puntland hase yeeshee wax garawsiya aysan ka siin. waxa ay sheegeen xildhibaanada in xariga xubnaha guddiga dhismaha wadada magaalada Boosaaso dhibaatada ka dhalatay ay qaadi doonaan madaxda Puntland ee sare, isla markaana tiro dhowr jeer ah aysan wax natiijo aysan ka soo bixin wadahadallo lagu doonayo in xubnahaasi lagu sii daayo. Hay-adaha amniga iyo kuwa garsoorka ee maamulka Puntland ayaa xildhibaanadan waxay ka dalbadeen in xorriyadooda ay dib u siiyaan dadka la xidhay. waa kuwan xildhibaanadu arrimahaasi ka hadlaya. waa in 48 saacadood gudahood lagu horgeeyo maxkamadda waxaa loo dadkaas inaan dadka la iska xidhan jeel lagu haysan xabsi xalaalayn wax leeyahay dastuurkana ma ogola, xeer ilaalin iska haysan karta ma jirto, qofkana xaquuq buu leeyahay. 48 saacadood ka badan maxkamad la'aan wixii loogu haysta iyo cidda haysataa dambi dastuuri ay ku jirtaa. anoo markaa waxaan rabnaa labada qodob ee dastuurka hadda aan soo qaatay labaduba waxay lid ku yihiin oo ciddii amarka bixisay iyo ciddii hadda xabsiga haynteeda ka shaqeynaysa dastuurka Puntland bay xadgudub ku sameeyeen. marka waxaan ugu baaqanaa dadka xorriyadooda in la siiyo. aad baan uga xunnahay, waa ka tacsiyeynaa, waa wax xun runtii. bini aadmiga dadkan waxay dastuurka u samaysteen, qawaaniinta u degsadeen. Puntland jiritaankeeda aasaas waxa iyo dawlad kasta oo wadanka ka jirtaba dadku waxay degsadaan in lagu shaqeeyo. mas'uuliyiinta xilalka haysta oo ka mid nahay waxay xilalka ku hayaan waa buugan weey. shacab siman baan ahayn, qof kasta xilka uu hayo wuxuu ku hayaa qodob ka mid ah buugan bulshada ku heshiisay. waxaan ugu baaqanaa hay'adaha garsoorka iyo hay'adaha amniga iyo cid kasta oo arrinta ku lug leh inay dadkaas xorriyadoodii la siiyo oo waliba degdeg loo siiyo oo shuruud la'aan loo siiyo. waxay xaq u leeyihiin magdhow qaanuunku jireeyo wixii qof sharci darro lagu xidho wixii xaq u yeelan lahaa xaq u yeelanayaan. taasna waxaan rabnaa haddii hawshaas sidii samakatalinta aanu ka galay loo sii dayn waayo dastuurka laftiisa wuxuu keenayaa in lagu xisaabtamo oo aanu ka wada hadno baarlamaanka Puntland oo gudbinana wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan halkan waa naga inta warka xigantaan ku kulmi doona waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.